السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu ka hadli doonaa sagaal qodob ee akhriska wanaagsan saldhig u ah. Kow, focus xoog saarid. Inaad shay xoog saarto oo dhownaanta iska ilaaliso waa furaha akhriska wanaagsan. Maskaxda saafiga ee mashquulka kale ka maran ayaa midka loo baahan yahay. Waqti ugu habboon waa xilliga hore ee subaxii, waa in waqti ay maskaxdaadu saafi tahay. labo, muhiimadda maadada gaarka ah. Tusaale ahaan, haddii aad baranayso maadada suuqgeyn ku saabsan, ku fikir sida aad maadada hadhow ugu fulin lahayd naqadaada oo aad ugu dabqi lahayd noloshaada. saddex, ha kuu muuqdo hadafkaaga waxbarasho. Markaad hadaf gaar ah daba socoto si dhab ah, waa xaqiiq in aad maalin uun gaarayso. Intii aad wax aqrin lahayd sabab imtixaan, naftaada u diyaari si lagu doonayo wixii aad fahamtay. afar, akhrinta ka hor diyaargarow sameyso jadwal akhris ah oo qorshe maalinle ah ku salaysan qayb kasta, farac kasta iyo maado kasta, maxaa yeelay waqtiguna inta badan waa mid furan oo aan jadwal lahayn. wax badan ayaa inaga lumay arrinta. shan, maadooyinka adag ka bilow maadooyinka adag si aad u dareento inaad tilaabooyinkii ugu adkaa aad ka gudubtay. inta kuu soo hadha inaad dhammaystirtaa way kuu fududaanaysaa. lix, meel go'an wax ku akhri. meel u go'an oo aad wax ku akhriso samayso. Ka fogow goobaha cuntada, telefishinka iyo xitaa moobilka, waxaana sii wanaagsan inaad sariirta ka fogaato. toddobo, ka fogow waxyaabaha ku mashquulin kara. sanooyinka dambe moobilada ismaaska ah waxay noqdeen kuwa ugu badan ee waqtiga lumiya. sidaa darteed, waxaana kugu talin lahaa inaad iska fogeyso xilliga wax akhriska iyo maalmaha imtixaanka. sagaal, isticmaal ereyada dhiirigelinta ah. halkan kaalinta ugu badan waalidka iska leh. waxaa laga rabaa inay ubadkooda dadaalka ku dhiirigeliyaan, kuna taageeraan ereyada niyadjabka ahna kana ilaaliyaan. yaraanta waxa ku barta, weynaanta waad ku arkaysaa.